galabta waxaa maasheeyay gobolka Togdheer iyo deegaanada hoos yimaada raxmaadka eebe ee guga waxaanu bilaabmay abaara 3 galabnimo kamanay dhalanin wax khasaara balse waxa uu ahaa mid lagu diirsado sidoo kalena waxa uu bedelay jawiga magaalada Burco raxmaadka eebe dabadi waxa aanu dareenkooda ku aadan jawiga magaalada Burco la wadaagnay galabta bulshada ku dhaqan magaalada Burco waana kuwan iyagoo ka dareen celinaya jawiga galabnimo الحمد لله رب العالمين أغنار تصاب كسر عم بينوها لدى ولا رابك يوم محمد كيبان إيش نقول هاينا لكن واحد شرط عقبة بدنه بشطر هبر أو كذا من مركب رابك هذه يقرأ عليه الرابات حن كم إذا بيجان يمكن بتاعنا ناكل وسنتر كم قال لحيه بحن ملا لامي جيت هو ده سايب أنتوا اللي حد يسوي يعني هو أي حال أنت وحنا كنا بلامي وأنا ناس بيو فرديان هذا بغتي معنا ما شاء الله بيابو من سوق وكان أبي فعل أنا كيلودي ما تشوف ولا سكتين لما يجوا يقولوا واحد سلبيها والدار من مريكليس أنا كيف يسمى وقت يا نهار ولا هدية شو راح تكون دورة دورة أنا بس عشان يكون كل خنا وقت دورة أنا ما أقول دورة هذه أبغى فرق لكن حتى في الوقت زمان لما رميت مريالة زمان ما نكرس عملت متى هذه أبغى فرق سنتين ولا هذه بنص عامس عبدون أنا اللي كان مجال شو ده يا زين صح هاي ما شاء الله والله إنكم هذا نقول أمبارح السجن وحكي inkastoo raxmaadka eebe lagu wada faraxsan yahay shacabka ku dhaqan magaalada Burco haddana waxa ay calaashanayaan ama carabka ku hayaan wada xumida magaalada taasoo ay shaaracyada fadhiisteen biyuhu haddii aan laga sii daynin biyaha shaaracyada waxa ka dhalan kara cudurro kullidiya caafimaadka nolosha aadamaha waxaanay ku sababeeyeen wax ka qabasho la'aanta haysata wadooyinka golaha deegaanka ee ay doorteen waqti xaadirkan sugan Axmed Nuur Ciise Maxamed Samraawi wakiil wareedka telefishinka caalamiga ee SBS magaalada Burco